بسم الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد soo dhawaada idil ahaantiinba maanta waxaanu qaadanaynaa su'aalaha cusub oo wax ka bedelka lagu sameeyay 2021 bishii tobnaad su'aalaha wax ka bedelka lagu sameeyay waa 45 su'aalood abkeena waxa jirta meel ay si gaar ah ugu jiraanin oo su'aalaha cusub nooyo fraaganka ay ku jiraanin arday kasta u baahan insha Allah macalinkiisa ay weydiin karaa sidoo kale to waxa jirta su'aalaha kale ay ku dhex qasan yihiin su'aalahan dhowr iyo 40 ayaa halkeenu ku diyaarinayno ama halkeenu ka daawanayno su'aalaha kale ay ku dhex qasan yihiin marka hal cashar baynu ka sameeynaa dhowr iyo 40 kaas si ardaygu uu hal mar isha u mariyo isan time badan uga qaadan so bismillah su'aasha koowaad waxa la yiri su'aasha koowaad waxa la yiri faskan so waxa la yiri find the fact regnet es plötzlich stark. Wir sollten sie sich verhalten. waxa la yiri adigoo gaarigaaga wada friend the fact yani intii aad soconaysay wadada ku jirtay ayaa roob soo daay roob xoogan ayaa soo daay intii aad wadada ku jirtay sidee ayaad u dhaqmaysaa adigoo saaka iska soo baxay oo jawiga caadi ahaa oo aan roob ku talagelin ba hal mar wadada roob kugu qabsaday sidee u dhaqmaysaa saddexdan su'aalood tan saxda baa la rabaa inaanu soo saarno tan koowaad waxa la yiri ishfeemayde ishtaaks beschleunigen waxaan ka fogaanayaa gaariga inaan aad u kaxayo inaan gaariga xawaarihiisa kor u qaado aad u kaxayo waan ka fogaanayaa ich verhindere den Sicherheitsabstanden zum Vorausfahrenden wuxuu ku yiri tan labaad waa khalad wuxuu ku yiri waxaan dhimayaa waxaan yaraynayaa taxadirka iyo masaafada aan u jirsanayo gawaarida iga horeysa haddaad badoo roob jiro gawaarida ku dhawaatid shil baa dhacaya taas marka waa khalad ich verhindere meine Geschwindigkeit xawaarahaygaan dhimaya aydan labadan saxa mar haddii roob yimaado oo rooba uu da'ayo labadan arrimood baa laga rabaa gaariga inaadan aad u kaxaynin oo xawaarihii loogu talagalay wadada aad xitaa hoos uga dhigtid sababtoo ah xaalad kale oo cimilo ayaa jirta iyo in aad gaariga xawaarihiisa dhintid iyo inaad gawaarida kale ka fogaatid oo iska ilaalisid aad ka fogaatid labadaas arrimood baa lagaga baahan yahay su'aasha labaad wuxuu yiri weshalb kann überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein wuxuu yiri muxuu xataa wadooyinka sida fiican u muuqanaya ee toosan maxay xataa baabuurku marka gaari baasaysid maxay khatar u noqon kartaa yani baasitaanku marka aad gaari baasaysid baasitaanku waa waxyaabaha shilalka ugu badan keena waa xaaladaha ugu xun oo shilal ku yimaadaan wuxuu ku yiri marka baasitaanku muxuu khatar u yahay xataa wadada sida fiican u muuqato oo toosan iska dhaaf wada luqluq aan si fiican kugu muuqanayn inaad gaari ku baastide wadada xitaa toosan oo fiican waa khatar buu ku yiri marka khatartu maxay tahay maxaa khatar ka dhigay wadadii waa wada fiican oo toosan oo si fiican u muuqata gaarigaas aan rabaa inaan baaso idaba socdo ama hor socdo soo gaariga ay hor socdo baan rabaa inaan baaso maxaa khatar marka ka dhigaya maxay xitaa xaaladahaasi khatar u yihiin waxa la rabaa in lagu baro hadalka soo wada duubo xataa haddii wada fiican oo muuqata oo bannaan oo cimiladu wanaagsan tahay ku soconaysid mar walba gaariga markaad gaari baasaysid khatar baa jirtay taxadir baasitaanku waa waxa shiralka ugu badan ee ka dhashaan gaari doonaya inuu baaso so saddexdan ayaynu marka kaga jawaabaynaa tan saxda baynu qaadanaynaa wuxuu yiri weil ich die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeuges alles zu geringen einschätze wuxuu yiri maxaa yeelay gaariga iga horeeya ama gaariga iga hor imanaya adigu marka gaari baasaysid gaari ka hor imanaya baa jira wadada wax ku baasaysid waa haadki kale gawaarida soo dhaafaya ee marayaan Soomaha marka wuxuu yiri gawaarida iga hor imanaysa ama gaariga iga hor imanaya xawaarihiisa ayaan markasta yaraysanaya marka xawaaraha gaariga ka hor imanaya yaraysatid maxaa dhacaya waxaad isleedahay gaarigaas intuusan halkan soo gaarin halka ka galo ka soo jiro ka soo noqo xisaab ba isku dhifsanaysa way gaariga kugu soo socda ba waxay yaraysatay xawaaraha uu kugu soo gaari karo waa waxyaabaha keeni kara shilka xataa wadadu iyadoo wada iska fiican oo muuqata tan labaad wuxuu yiri taas waa sax tan labaad wuxuu yiri meinen überholweg kürzer einschätze als ist in wadada aan anigu doonayo inaan gaariga ku baaso inaan wax yar ku qiyaaso waxa ay tahay wax ka yar inaan ku qiyaaso muxuu uga jeedaa tusaale ahaan gaari markaa baasaysid waxaad u baahan tahay xoogaa wadada aad gaariga ku baasaysid inaad ku sii socotid oo dabadna wadadaada ku soo laabatid markii horeba waxaad u qaadatay wax yar oo inta san loo baxay san loo soo gelayo waxaad yaraysatay xawaarihii yani masaafadii aad u baahnayd marka masaafadii gaarigii wadadii gashay aadan lahayn oo aad gaastiga ku ahaydna martida ku ahaydna
dee shil baa dhacay ilaa kama soo noqon kartid oo si khaldan baad marka hore usoo gashay taasuna iyaduna waa sax tan saddexaad wuxuu yidhi die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeuges alles zu große Entfernung tanna waa sax wuxuu yidhi iyadana waxaa ka mid a in gaariga soo socda masaafada uu ii jiro aan fogeysto tii hore maxay ahayd gaariga xawaarihiisa ayaan yaraystay oo waxaan islahaa muddu u soo soconaya halkan gaariga halkaa ka soo socda kuma soo gaaraya ee ka gaar haddana maxaa lagu yidhi masaafada oo maxay tahay gaariga waaba fogeystay oo waxaan u maleeyay inuu iga fog yahay gaariga iga hor imaanaya rabo inaan wadadiisa wax ku soo baaso waxaan moodayay inuu iga fog yahay oo masaafadiisa ayaan fogeystay taasuna waa waxa keeni kara shilka isku soo wada duubo waxa la rabaa in lagu yiraahdo war marka aad gaari kale baasaysid iska jir wadada aad ku baasaysid gaariga in gawaari soo hayso oo haddii gaariba wadada soo socda ha gelin ha isugu dhawaaneen waayo gaariga ina masaafihiisa fogeysatid iyo ina xawaarihiisa yareysatid iyo ina tiraado wax yar baan u baahanahay xaggan ka soo jiireynaya iyo waxa soo dhan wax loo baahan yahay waa waxyaabaha shiraalka keena saa darteed marka gaari baasaysid wadada kale for example bidixda ee gawaarida ku baasaya ay leeyihiin adigu aad rabtid gawaarida ku soo baastid iska jir horta hadiiba gaari soo socda haba gelinba taas la rabaa in lagu baro saddexduba waa sax ayadana waan ka gudubnay halkan video buu inoo diray videogan waan daawanaynaa muxuu inuu ku tusayaa saa u jeedaan sidaad u jeedaaniin aan hal mar sawir ahaan u gudubno sidaad u jeedaan halkaas waxaa soo socdaa qof oo electric roller ku soconaya waxa la yiraahdo bahlaan dhulka lagu socdo lugaya ee dadku ay ku raacaanin ayaa halkaas soo socota halkanna gaarigan baa socda oo doonaya inuu soo baaso xagga uu soo gudbo labadan marka ma iga xaq leeyihiin mise anaa ka xaq leh taas la iga rabaa gaarigani ishaaradii buu riti maana xaq leh mise iyaga iga xaq leh wuxuu yiri sie möchten geradeaus weit fahren waxa rabtaa inaad toos u socotid wie verhält sie sich in dieser Situation richtig sidee ayaad xaaladan u dhaqmaysaa xaaladan sidee ayaad u dhaqmaysaa adigu toos baa rabtaa inaad iska socotid sidee ayaad xaaladan u dhaqmaysaa wuxuu yiri ich lasse den electric roller die Fahrbahn überqueren horta bahalka electric roller waxa la yiraahdaa bahalkan qofkaas uu saaran yahay asaga horta waxaan deenayaa inuu dhaafo haddii kale waan isku dhacaynaa hadhow waan ku dhici doonaa horta hay dhaafo isaga iga xaq leh ich überquere die Kreuzung als erste cid kasta anaa ka horeynaya oo anigaaba jaraya iskoyska marka ugu horeysa waa khalad taas cid kasta kama horeyn kartin labadanba iyaga ka xaq leh ich lasse das rote Fahrzeug abbiegen gaariga casna waxaan deenayaa inuu soo dhaafo gaariga cas ishaaradii buu ritay xaggu uu soo dhaafaya soo maaha saa darteed gaarigu hay soo dhaafo qofkaas electric rollerka watana xag gudbo markaas baan anigu ishaarada mari karaa inta ka horeysa la iima ogola labadaas ayaa saxa weynuna saxnay weynu ka gudbaynaa waxaanu nimi su'aasha afraad wuxuu yiri sie möchten ausparken waxa rabtaa inaad parking ka baxday ausparken waxa la yiraahdaa gaari parking ku jira oo ka soo baxaya aniga parking baa ku jira waxa rabaa inaan ka soo baxo parking meesha aan saaranayo waa parking wuxuu yiri sie möchten ausparken wie beurteilen sie die Situation richtig sidee ayaad xaaladda u qiimeynaysaa inaad parking ka baxdid baad rabtaa yani xaaladda sidee u qiimeynaysaa maxaa ku xisaabtamaysaa maxaa dhici kara saasoo rabaa inuu yiraahdo von hinten kommende Fahrzeugführer sehen mich erst spät waxaan xaaladda ku qiimeynayaa in gawaarida xaggan dambe ka imanaya aysan hore ii arkayn oo gaari iska soconayaan isku dhici karno oo dareewalkaas uusan hore ii arkayn yani dareewalka gaariga iga dambeeya Fahrzeugführer waa dareewalka ama Fahrzeugführer waa dareewalka aydan dareewalka gaariga iga dambeeya inuusan arago isagoo isla iska soco aan hal mar ku soo baxo aan isku dhacno taas horta waxyaabaan ku xisaabtamaya kamid tahay Fahrzeug sehe ich erst spät in anigu ba arki waayo gaariga soo geliya wadada oo aan ku dhaco gawaarida oo si fiican baan u taxadirayaa hadalka macnihiisu waxa weeye maadaama aad ku xisaabtamayso ogtahayba in gawaarida gadaalkaaga imanaya ay kugu dhici karaan adiguna aad ku dhici kartid taxadir dheeraada waad bixinaysaa labadaasba waa sax tan saddexaad baynu nimi wuxuu yidhi Fahrzeugführer lass mir beim Ausparken meinen Vorhang gaariga gadaalka imanaya aniga ka xaqle oo waaba inuu aniga isiiyo si aan parking uga baxo taas waa khalad gaari parking ku jira marna xaq male markasta gaariga wadada saaran baa xaq leh saa daraadeed labadaas ayaa saxa markasta aad parking ka soo bixaysid waxaa la rabaa in lagu baro taxadir gaariga wadada maraya kuma arki karo waxa dhici karta inuusan ku arag oo kugu dhaco ama adiguba ina arki weydid oo gaari iska soo socda aad horgashid oo kugu qaado saa darteed taxadir waxa kaliya la rabaa in lagu baro marka aad parking ka soo bixaysid taxadir labadaas ayaa saxa weynuna saxnay waxaynu maraynaa su'aasha shanaad
wuxuu yidhi warum ist das vorbeifahren an diese Unfallsituation gefährlich wuxuu yidhi shilkan in la dhaafo maxay khatar u tahay meesha shil baa ka dhacay shilkan in la dhaafaa la rabaa waana khatar shilka kan in la dhaafo khatar weeye maxaa khatar ka dhigay laakiin su'aalahan jawaabahan ayaynu mid qaadanaynaa ama labo ama saddex hadba wixii saxa wuxuu yidhi weil Folgeunfälle möglich sind maxaa yeelay waxaa dhici karta shilal kale inay shilka ka daba yimaadaanin oo meesha mar haddii shil iska dhacay oo waddadu khariban tahay oo xaalad iska gashay waxaa dhici karta shilal kale inay dhacaanin waa waxyaabaha khatarta keeni kara oo taxadirka u baahan file Fußgänger übersehen werden können maxaa yeelay dadka lugaynaya in la arki waayo oo la maro yani übersehen waa in gaariga qofka la marsiiyo marka in la maro baa dhici karta dadka lugaynaya in la maro ayaa dhici karta ilaa meeshii shil baa ka dhacay dad baa marmaraya dhaawac baa la qaadaya shilalba meeshii hawl baa taala dadka in lagu dhaco iyaduna waa waxyaabaha khatarta ka dhigi kara weil die Verkehrsanlage unklar ist maxaa yeelay xaaladda waddadu ma cadda xaaladda socodka ee waddadu ma cadda dad baa meeshii marmaraya dhaawacyaa yaala waxbaa ku jajabay gawaari baa isdhaafaysa xaaladdu xaalad cad maaha oo si fiican oo clear waddada loo arkayo saa darteed saddexda xaaladoodba waa waxyaabaha keeni kara ama khatar ka dhigi kara shilkan in la dhaafo macnaheedu waxaa la rabaa isku soo wada duubo in lagu baro war shilkan oo kale markaa dhaafaysid taxadir ku dhaaf adoo xiimaya iska soo gelin adoo digtoon oo hortaada eegaya oo gaarigaaga si fiican u kontroolaya meesha tan mar si aadan adiguna shil kale usii samayn oo shilalku aysan u badanin aydan saddexdaba waynu saxnay saddexdaba sax bay ahaayeen su-aasha lixaad ayaanu maraynaa wuxuu yidhi was müssen Sie in dieser Situation beim Überholen der Radfahrer beachten? Was müssen Sie in dieser Situation beim Überholen der Radfahrer beachten? wuxuu yidhi xaaladatan maxaad ka taxadiraysaa markaad baaskiilaha rabtiin inaad dhaaftid xaaladdan aynu ku soconnaa waddadaynu ku soconno waa tan baaskiilayaashaas baynu waxaynu rabnaa inaynu dhaafo su-aasha markii meesha taallaa waxay tahay war maxaa ka taxadiraysaa waxyaabaha ka taxadiraysid maxay yihiin waa su-aasha layna weydiiye wey su-aasha layna weydiiya waxay tahay maxaa ka taxadiraysaa schmus mit mindestens 1,5 Meter Zeitabstanden überholen aydan 1 mitir iyo bar horta waa inaan u jirsanayo markaan baasiyo markaan dhinacan ka dhaafayo waa inaan 1 mitir iyo bar saas 1 mitir iyo bar waa inaan u jirsan karo ugama dhawaan karo taas waa sax schmus mit mindestens 1,0 so 1,0 Meter Seitenabstanden überholen taas waa khalad 1,0 geht nicht waa 1,5 wey ka yar uma mari kartid taas dhexe marka waa khalad tan kale wuxuu yidhi aufgrund der Steigung blenden die Radfahrer wuxuu yidhi waxyaabaha iyadana ay tahay inaan ka taxadiro waxa weeye leexleexadka baaskiilka qofka wata toos uma socdo wuu iska ciirciiraayo wuu iska leexleexdaa sidaa daraaddeed taasna waa inaan ka taxadiro aanan kusoo dhawaanin gaariga qofka wata toos buu u mari karaa haddaad gaari isdhinac maraysaan hadduusan qofkaasu kharribnayn ama adigu kharribnayn gaarigaa iskuma dhacaysaan haddii masaafada loogu talagalay inaad isku dhaaftaanin ama isku barbarmartaanin waayo qof waliba tooskiisu u socdaa gaarigu ma ciirciiro baaskiilku laakiin waa ciirciira sidaa daraaddeed labadan ayaa saxa taas waa khalad ayna kama funuf lama ogola so aynas kama nuul lama ogola laakiin labada kale way saxan yihiin waynu saxnay taana waynu ka gudubnay video wuu inoo diray videoga waan iska daawanaynaa الكفايجن سأوجدانين وحيري يا إشارة وحيليه صوصعه إشارة يريد يا صوصعه ويليه مركز تن أيا اللي ويدينيا عدة حق له يوحنا كيري أيا الربا وحلي ربا وحيربان دفنسي أبيجن قرما يا حنس أنا وين اللي إحنا ربا بالحبه لكن الكفايجن سإشارة يريد إشارة ده يريد وحي كدي جنت هاي أدو كله حي جهر له حساس كدي جنت لكن ما قاعدن كره هذا الكيسة وحنا آخر سنة نصدق لنا شباب مد الصحراء عبين هيرنا وحير الصفات ده الكفايفارة مش تسو أفضل وحير قرما اللي حنا سبليني لما قرما اللي حنا كرتا صومهين مر الله مركي ولينك أدراول كجاريجا وطا عن دقنين كهلا أما أنا أقولان شكهلا بانسكال اللي حنايا مر الله مركي أنا أقولان شكهلا إن اللي حدا وان اللي حنايا وآخرت هذا إشارة وحكي لو قدر لها كور إشارة وفيدي إشارة ما نو يريدي ما وحكي لو قدر لها ما سخل دم بالله يركوجا شد ماي لو ودعي كرتا ما أوجن سادرتد layr ka yaro leeno riday ciyaar ugu ma giri karno wadada gaariga isaga iga xaqle taas waa khalad kuma digdii karo Stefan de Alkafai-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf seine Vorfahrt verzichtet hat tan waa sax
waxaan leexan karaa buu yiri ugu horeyn marka darawalka gaarigaas elkafeega waa gaariga weyn halka ka soo jeeda ee iga horyimi gaarigan iga horyimi weeyaan aydan wuxuu yiri marka darawalka gaariga elkafeega uu si cad gacanta iigu sheego inuu ka tanaasulay hor lahaanshihiisa isaga iga hormari lahaa isaga iga hor lahaa markuu gacanta iigu tilmaamo inuu iga hor lahaanshihiisa uu ka tanaasulay markaas baan leexanayaa haddii kale waan sugayaa hay soo dhaaf maxaa yeelay isaga iga xaqle ciyaar kuma geliyo wadadiisa nur wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht wesentlich behindere haddii aanan isu socodka gaadiidka cidnana khatar gelinaynin cidnana xanibaynin maxaa laga wadaa gaadiidka wadadan isku dhaafaya aniga way iga xaqleeyeen kuwa xagga ka imanaya way iga xaqleeyeen haddii marka gaadiidkaasi aysan jirinin gaadiid marka wadada maraya oo iga horeeya oo aan marka ama xanibayo ama khatar gelinayo sida gaariga hadda iga horyimo oo kale kaasoo kale khatar baan gelin karaa waa inuu ama si cad igu sheego inuu kay iska taagay ama waa inaan anigu taagnaado ilaa intuu iga soo dhaafayo xaq wada kale yani wax kale ima furna oo aan isku baasi karno saa darteed wuxuu yiri ilaa labada xaaladood aan mid ka helo ma baxayo hadduu marka gaarigu uu leer ka biligsiiyo macna uma arkayo buu yiri taasina marka waa khalad isla markaba waan dhaqaaqayaa sax maaha labadan ayaa saxa way meeshan waa layga xaq leeyahay waynu saxnay waynu ka gudbeynaa wuxuu yiri an diese Ampel mit grün Befehlsschild mochten Sie jetzt nach rechts abbiegen wie verhalten Sie sich richtig wuxuu yiri wadada tan oo befeil waxa la af Soomaali waa fallaadha cagaarka wuxuu yiri wadadan fallaadha cagaarka ah ee midig u jeedo ayaa adiguna waxa rabtaa in midig uga leexatid fallaadha waa cagaar midig bay tilmaamaysaa Soomaa laakiin waxba meesha istul saaran sug marka saddexdan jawaabood ayuu ina leeyahay tan saxda ah ka dooro ich schließe eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer aus. Ich schließe eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer aus. waxaan marka u horeysaba aan meesha ka saarayaa aan sugayaa intay idaafayaan gaadiidka kale inaan xanibo oo dhibaato u geysto horta waan iska hubinayaa marka u horeyso horta gaadiidka kale aan xanibayo horta hay dhaafin waa qodob taas waa saxanahay taas waan ku saxanahay sida aan u dhaqmayo waxa kamida ilaa sida u dhaqmaysaa baa la yiri meeshan aad rabtaa inaad mid uga laxtay waxaan u dhaqmayo waxa kamida horta gaadiidka kale inaan xanibo oo dhibaato baan iska ilaalinaya inay dhaafaan baan hubsanaya qodobka koowaad qodobka labaad ich biege ohne anzuhalten mit Schrittgeschwindigkeit ab anigu aan istaaginin ayaan xawaaraha hoose ku leexanaya waa khalad inaan istaagan ku khasbanahay meesha ishaara ku jirta ishaaradu iyo ka qarsoomin waxa weeyaan fallaadhan cagaarka ah ha ku kadsoomin meesha ishaaro iyo stop iyo wax badan baa yaala stop waa meesha taala saa darteed istaagid la'aan ma leexan kartid waa ku khasbanta inaad istaagtid tan saddexaad baynu imanaynaa taa labaad waa khalad wuxuu yiri ich halte zunächst an der Haltlinie an Haltlinie hayaan isku taagay Haltlinie waxa la calaamadan cad taasa saxa sababtoo Haltlinie ana isku taago waan ku khasbanahay Haltlinie ana isku taago waan ku khasbanahay aydan labadaas saxa Haltlinie han isku taagaya la meesha stop baa taala Haltlinie han isku taagaya waxaan iska hubinayaa gaadiidka kaleeto markaan hubiyo inaan gaadiidka kale xanibaynin Haltlinie aan isku taago iyadoo waa khasab in Haltlinie aan isku taago ayaan dhaqaaqayaa oo si taxadir loo leexanayaa labadaas baa saxa waynu saxnay iyadan waynu ka gudbinay su'aasha sagaalaad ayaynu maraynaa wuxuu yiri falsches Verhalten ist richtig habdhaqankee ayaa saxa halkan aynu maraynaa wuxuu yiri habdhaqankee ayaa sax ah ich muss warten waan sugayaa gaarigaas galbiga halka ka soo socda ama jaalaha ninba sidoo yaqaano waan sugayaa ich muss blinken leerkan ridanaya waan sugayaa marka waa khalad inaan sugo sax maaha ma sugi karo aniga ka xaqle aydan ich muss blinken horta leerkan inaan rito iyadu waa sax ilaa anigu waa leexanaya ishaarada midig baan la leexanaya baashan aan leexanaya der gelbe personal kraftwagen muss warten gaariga galbiga aniga waa inuu isugo gaariga galbiga ama jaalaha ama huruudda ninba sidoo yaqaano waa inuu aniga isugo maxay anaa ka xaqle aydan labadan baa sax marka horeysa leerkan ridanaya marka labaadna gaarigaas anaa ka xaqle waan iska leexanaya danki ma geliyo isaga hadduu isoo galo isaga khalad leh sagaal su'aasha tobnaad ayaynu hadda maraynaa wuxuu yiri Sie müssen sich bei diesen Verkehrszeichen verhalten wuxuu yiri calaamadda tan sidee ula macaamilaysaa calaamaddan maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa dad wadada maraya soo ma dad baa meesha wadada ka jaraya iska taxadir oo iska jir saas leeyna leeyahay wuxuu yiri ich muss bremsen bereit sein
waxaan diyaar u noqonayaa inaan istaago oo yacni gaarigan breakan ku dhaweynaya lugta weeye mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgänger überweg he anfahan meesha oo dadku wadada ka jiraana waxaan ku marayaa xawaare ku haboon yani xawaare hoose oo ku haboon baan ku marayaa orod kuma maraya iyaduna waa sax besondere Aufmerksamkeit sein taxadir dheeraada ayaan bixinayaa saddexduba waa sax marka meesha dadku wadada ka jirayaan aad maraysid waa meelaha ugu khatarta badan shirarka ugu badanna ka dhacaan taxadir dheeraada samay saddexduba waa saxnay haddana wax qaladno xaggan hoose wuxuu hadda inoo ku qoran cagaar wuxuu ina yiri diese Frage wurde richtig beantwortet haddana wax qaladno wuxuu inoo oranayaa waa khalad halkaas inoo ka sheegaya so aan sii socono marka video ayuu inoo diray mar kale su'aasha 10aad ayuu video inoo diray waynu iska dhameysanaynaa 15 ilbiriqsi weeye markasta videoga 15 ilbiriqsi wax badan ka qaadanayso way ardayda qaar baa jecel in videoga loo dhameeyo si khaladaadka ay videoga ugu arkaaneen so maxay tahay marka ciladayna haysata cid miyayna ka hortimi may khaladka uu ina tusayay muxuu yahay khaladku ina tusayay waxa weeye gaarigeena ayaa cilad ku dhacday gaarigeena ayaa cilad ku dhacday haddaad u jeedaanin halkan steerinka aadan dhihin dashboardka gaariga waxaa ka soo baxday calaamad gaarigayga oo gelbi ah calaamadda leerkaas gelbiga ah leerka gelbiga ayaa soo baxay leerka gelbiga marka muxuu tusinayaa leerkan yar ee gaarigu ku sawiran yahay gelbiga ee dashboardka gaariga ka soo muuqday muxuu i tusinayaa kaas weeye waxa hadda layna tusayay oo videoga layna ku tusayay gaarigana markii hore ma uusan shidmayn videoga mar labaad ku cesho seen u soconaynay buu hal mar soo shidmay kaasaa la rabaa marka in layna baro wuxuu yiri die Anzeige für das elektronische Stabilitätsprogramm ESP hat mehrfach geleuchtet. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? wuxuu yiri bahalka loo yaqaano ESP waxa la yiraahdaa elektronische Stabilitätsprogramm waa programkan yar ee halkan leerka ka soo baxaya ayaa hal mar shidmay gaarigiisa inuu soconin hal mar buu shidmay oo waliba mar kaliya ma shidmina wah leerar buu soo celiyay mar buu wuxuu bilaabay inuu shidmo ciladu maxay tahay marka cilada keentay ama sida loo xalinayo ciladan ama waxa uu inoo ka digayo maxay tahay waa qayb technical oo farsamo buu ina baraya saddexdan jawaabood ayaa waxa la rabaa tan saxda ah inaanu markaa qaadano wuxuu yiri ich behalte meine Geschwindigkeit bei da das ESP eine sichere Weiterfahrt ermöglicht wuxuu yiri xawaarahaygan iskaga soconaya maadaama qalabkan la yiraahdo ESP waa electronic stability program maadaama uu isaguba ii suuro gelinayo inaan qaab ammaan ah u sii socdo oo wax walba ay og yihiin xawaarahaygan ku sii soconaya waa khalad kuma sii socon kartid wuxuu yiri ich suche waxaan raadinayaa eine Fähigkeit auf ich suche eine Fähigkeit auf waxaan raadinayaa meel Fähigkeit waa meesha gabarida lagu hagaajiyo Soomaali waxay yiraahdaan garage ayaan raadinayaa dadii elektronische Stabilitätsprogramm Anzeige auf einen Defekt hinweist maadaama uu ii tilmaamayo qalabkani inuu xumaaday gaarigu marka waxaan aadayaa meel makaaniga taasina ma saxna sababtoo aniga gaariga qalabkani iima sheegayo gaarigayga inuu xumaaday tan saddexaad ayaan imanaynaa wuxuu yiri ich verringere meine Geschwindigkeit xawaaraha ayaan dhimayaa das ist so hoch ist maadaama uu xawaaruhu sareeyo oo maxay xaaladani tahay gawaarida waynu arki doonaa casharadii horena waynu ku soo aragnay casharkana waxbaynu ku arki doonaa waxaa jira khaasatan gawaarida cusub qalab elektrooniga oo fara badan oo ku xiran baa jira oo ka caawinaya socodka markii khatar galay sidoo kale ku digaya hadda meesha tan gaariga xawaare sare baa ku wadii meeshana waa baraf saa u jeedaanin barafkii iyo waxa is yeelan waayay xawaariha ku socotay calaamadani maxay tahay markii calaamadani waa digniino waxay kaaga digaysaa xawaaraha aad ku soconaysid waxay ku leedahay warada xawaaraha ku sii socotid meeshana waa baraf oo gaarigu waa kula siibanaya shil baad galaysaa gaariga xawaaraha soo dhin adaa lagu digaya soo calaamadu uma jeedaan sida taayirada gaariga hortiisa ugu sawiran tahay adaa lagu digaya waxa lagu leeyahay war gaariga xawaarihiisa soo dhin saa darteed garage-na ha aadin gaarigana xawaarihiisa ha ku sii kaxaynin xawaaraha gaariga soo dhin oo tartiib u soco qalabkaas wuxuu sheegayaa ama calaamadaas wuxuu sheegaysaa un xawaarahaaga inaad ka kormartay wax kale ma sheegayso taas qura ayaana saxa waynu nasaxnay waxaanu maraynaa su'aasha 12aad wuxuu yiri Sie benutzen auf ihrer Fahrt die adaptive Geschwindigkeitsregelung AGR Ihres Fahrzeuges. Womit müssen Sie bei dieser Federung rechnen?
qalabkan adaptafe la yiraahdo oo hadda ka sheekeynayo waa qalab isagana keenu hadda soo mareynay oo kaleeta ah waa qalabka gawaarida lagu xirto inta badan ku caawin kara marka wuxuu yiri qalabkaas baa gaariga kugu xiran gashfiindiga Sregalang waa qalab xawaaraha gaariga ka caawin kara oo xataa mararka qaar inta gaariga 100 la saaro markii wado fiican iyo cimilo fiican ay ku soconaysid ba qalabkaasi lagu joojiyaa dabadeedna waa iska soconaysaa adigu ma baahnid inaad cagta ku ilaalisid maanta bahalkii isagaa iska soconay marka kaas baa gaariga inoo ku rakiban inagoo kaas ku soconayna beenu xaaladan jawigan beenu soo galay fetrungu waa jawigan muxuu yahay jawi barafa oo dhulkiiba baraf yahay xaaladii isbedeshay beenu soo galay mar haddaynu xaaladatan soo galay maxaynu ku xisaabtamaynaa maxaynu samaynaynaa jawaabahan saddexdan jawaabood ayaynu ka raadinaynaa jawaabta saxda marka wuxuu yiri die EGR kan in ihrer Funktion beträchtlich sein wuxuu yiri wuu ka qalabkan la yiraahdo adaptafe Geschwindigkeitsregelang wuxuu xawaarihiisa yani wuu funksiyonkiisa yani funksiyon waa wax weeyaan yani shaqadiisa wuu ku khaldami karaa ama wuu dhaafi karaa yani shaqadiisa wuu dhaafi karaa oo macnaheedu tahay shaqadiisa wuu ka gaabin karaa yani die adaptafe Geschwindigkeitsregelange kann in ihrer Funktionen beträchtlich sein tan koowaad aydan wuu ka gaabin karaa shaqadiisa oo tusaale meeshii qalabkan caadi ahaan waxa lagu socdaa markii aad haysatid jawi fiican iyo wado fiican iyo buu ku caawiyaa mar haddii meeshii wado fiican aysan jirin oo jawigii fiicnayn oo baraf meeshii tahay oo xaaladani jirto marka shaqadiisii ma qabanayo shaqadiisii wuu ka gaabinayaa waa wax suurtagal ah la iskuma hadlayn karo weeye marka taasi marka waa sax tan labaad ayaynu nimi wuxuu yiri ich muss die Geschwindigkeit und den Abstand selbst regulieren wuxuu yiri xawaaraha iyo masaafada aan gawaarida u jirsanayo aniga ayaa xukumaya maaha inaan qalabkan isku hadlaynayo oranaya qalabkan ay xukumaya waayo xaaladda uu qalabkan shaqeynayay waa laga soo gudbay taasina waa sax wuxuu yiri die Adaptafe Geschwindigkeitsregelange hält das Fahrzeug an gaariga isaga ii joojinaya oo isaga ii qabanaya taas waa ku saxan yahay Regelung hält an Die Adaptafe Geschwindigkeitsregelang hält an. Das ist nicht möglich. Sababtoo ma qaban kara isaga inuu ku qabto lagama yaabo suurtagal ma aha. Suurtagal ma aha. Genau. tan hoose waa khalad labada sare ayaa sax ahaa tan hoose waan khalday sababtoo inuu ku qabto lagama yaabo way jirtaa mid break la shaqeeya laakiin kan maaha adaptafe Geschwindigkeitsregelang maaha kan break la shaqeynaya aydan labadan sare bes ayaa sax ah tan hoose waa khalad gaariga ima qabanayo saa darteed anaa layga rabaa gaariga inaan controlo anaa layga rabaa gaariga inaan joojiyo bahalkaasi ama qalabkaas hadda wadanay la yiraahdo adaptafe Geschwindigkeitsregelange ima caawinayo xaaladatan mar haddii xaaladatan la joogo ima caawinayo saa darteed waa inaan anigu taxadiro awoodiisa inaanan isku hadlaynin saas ayaa sax ah